qodobo dadka Soomaaliyeed oo runtii dalkan uu yahay dalkii labaad qodobo maslaxadooda iyo labada dal maslaxadiisa ka turjumayeen guul bayna runtii ugu soo dhamaaday maanta dalkiisa shirka jiraad halkan uu qabtay heshiiska faahfaahsan dadka Soomaaliyeed wasaaradii Xuseen ayaa la wadaagi doona waxaan rajaynaynaa in dhammaan dacayadii iyo beentii iyo wixii la waday labadii maalmood soo dhaafay inay meeshaas ku soo gabagaboobeen hadda official document oo rasmi ah oo la saxiixayo wixii la lifayay oo ka xumaa dadka ka xumaa in xiriir fiican labada dal ay yeeshaan meeshaas inay ku soo gabagabowday dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay official journalist ay ka qaataan wararka oo aysan dacayadaha iyo maaragtay dadka warmashilka ay soo xogaysanayaan aad baa mahadsantiin halkani aan ku suganahay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi waxaa maanta ilaa iyo 3 heshiis oo kala duwan ku saxeexday dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya heshiisyadan waxaa saxeexay wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal iyo sidoo kale wasiirada waxbarashada ee labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya heshiisyadani oo ka koobnaa ilaa iyo 3 qaybood ayaa waxa ay kala daarnaayeen arrimaha ganacsiga amniga iyo sidoo kale waxbarashada marka aynu eegno dhanka amniga waxaa soo hoosgelaya heshiisyada maanta qalinka lagu duugay arrimaha socdaalka iyo sidoo kale xuduudaha dhanka ganacsigana waxaa soo hoosgelayay kalluumaysiga iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga iyadoo la sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan doonto dhanka ganacsiga suuqyada Kenya ku yaala sidoo kale waxaa heshiisyadani ka mid ahaa dhanka waxbarashada oo la sheegay in jaamacadaha Kenya ay aqoonsadeen shahaadooyinka dugsiyada sare ee tikro laakiin qodobada ugu muhiimsan wuxuu ahaa oo in ganacsiga la isku furo oo malayga Soomaaliya iyo kalluunka badda Soomaaliya oo ilaahay u manasay khayraadkaas in albaab cusub loo furo waxaa ka mid ahaa waxbarashada oo runtii iyadana macallimiinta tababarkooda iyo isdhaafsiga khibradda iyo waayo-aragnimada iyo maamulka xagga tacliinta oo iyadana heshiis fiican laga gaaray waxaa kaloo laga gaaray arrimaha siyaasadda labada dal diplomatically aad bay isku soo dhow yihiin in regionka gobolka iyo dibaddaba arrimaha issueska jiraba in la iska kaashado la iskaga soo dhowaado dhammaan marka arrimahaas kale waxbarashada la gaaray blue economiga sidaan u tilmaanaa waxaa laga tilmaamay ciidankii amniga iyo xuduudaha ayaa laga tilmaamay oo iyadoo heshiiskan taabanayay oo ilaa dhammaanaysa iyo isku socodka dadka ilaa qaybo ka mid ah wadahadalkoodii uu socdo ilaa October la rabo in soo gabagabeeyo July marka dhammaan runtii labada dawladood albaab cusub iyo wada shaqayn cusub ayaa u furmay JCC-dan dawladaha qaarkood Kenya waxay la maraysaa kii 30aad kii 33aad la maraysaa laakiin anaga